halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud wuxuu ku dhashay 1922 degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wuxuuna aabihii geeriyooday isagoo yar waxaana soo korisay hooyadii oo la oran jiray Mareero Diini Axmed Warfaa wuxuu u soo boqolay magaalada Muqdisho asigoo ka bilaabay dugsiga Quraanka iyo waxbarashadiisii hoose iyo dhexe 1938 Cabdulaahi Ciise isagoo jira 16 sano ayuuna ka qalin jabiyay dugsiga sare wuxuuna durba noqday maamulo xafiis 1943 wuxuu ka mid noqday golihii dhexe ee SYL oo markaas la dhihi jiray SYC asigoo 1944 ka furay magaalada Beledweyne laantii ugu horeysay ee xisbiga waxaana xusid mudan in Beledweyne tahay magaaladii uu madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan kaga soo biiray xisbiga SYL halii Cabdulaahi Ciise asigoo jooga Beledweyne isla markaana tahay sanad guuradii afraad ee xisbiga ee 15 May 1947 ayaa loo doortay xogayaha ururka asigoona durba bedelay magacii ururka ee ahaa SYC una bedelay SYL ama Somali Youth League barnaamijkiisii siyaasadeed uu soo bandhigayna wuxuu ka koobnaa 5 qodob oo kala ahaa in la raadiyo gobonimadii iyo xorriyaddii shanta Soomaaliyeed oo midaysan in la dagaalamo dhaqanka kala qaybinta ee qabyaaladda ku dhisan in laga taqaluso ciddii ka hortimaada danta Soomaaliyeed in waxbarashada lagu baahiyo dalka lana dhiso aqoonta iyo waxqabadka dhalinyarada iyo in la qoro afka Soomaaliga 1947 bishii November halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud wuxuu gudoomiyay fadhigii taariikhiga ahaa ee golaha dhexe ee SYL ku gaareen in muddo 10 sano ah maamulka Soomaaliya si ku meel gaar ah loogu dhiibo afartii quwadood ee waagaas dunida ka jiray isla markaana ku adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka oo kala ahaa Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka dowladahan guddi ka socday ayaana dalka soo gaaray 7 Janaayo 1948 si ay ugu kurgalaan rabitaanka dadka Soomaalida inta uusan guddigan imaanna SYL waxay qabatay shirweyne ee ka soo qayb galeen gudiyadii leegada ee gobolada Soomaaliyeed oo idil si loo cadeeyo mowqifka Soomaalida 11 bishii koowaad 1948 halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo ku sugnaa xarunta SYL ayaa waxa soo weerareen koox daba dhilif u ahaa Talyaanigii ururka SYL-na wuxuu go'aansaday weerar waji ka waji ah inuu galo waxaana maalintaas bilowday dagaalkii ha noolaato oo ay ku geeriyoodeen 52 ruux oo Talyaani ah iyo 15 ruux oo daba dhilif u ahaa inkastoo maalintaasi ay dagaalka ku geeriyoodeen 14 wadaniyiin ah oo ay ka mid tahay halyeeyad Xaawo Cusmaan Xaawo Taako 28 bishii 10aad 1948 ayuuna dalka ka dhoofay si uu uga qayb galo shir ka dhacay Paris oo ay soo qaban qaabiyeen wasiiradii arrimaha dibadda Talyaaniga iyo Ingiriiska 31 bishii 10aad 1948 wuxuu halgamaa Cabdulaahi Ciise warqad u qoray xogayihii qaramada midoobay asigoo u sheegay in Soomaaliya doonayso xorriyadeeda isticmaalkii Ingiriiska kolkaas wuxuu damcay inuu ku mudo talaal sun ah Cabdulaahi Ciise waxaana Cabdulaahi Ciise iska dhigay oo aadna ugu ekaa mudane Maxamed Yuusuf Aadan Muuro waxaa lagu muday talaalkii sunta ahaa ee loo maleegayay Cabdulaahi Ciise in muddo ah ayuuna u jiifay sariirta talaalkaas awgiis 30 bishii 10aad 1948 halgamaa Cabdulaahi Ciise waxa uu ka degay magaalada London 3 bishii 11aad 1948 ayuuna la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Maarso 1949 wuxuu tagay xarunta qaramada midoobay ee New York halkaas oo uu ka waday diblomaasiyadii uu xorriyadda Soomaaliya ugu raadinayay 13 bishii 6aad 1949 isagoo ku sugan magaalada New York wuxuu SYL u soo diray qoraal uu ugu sheegayay guud ahaan Soomaali weyn qatarta uu wato qorshaha ajnabiga 21 bishii 11aad 1949 wuxuu suurtageliyay in qaramada midoobay soo saarto go'aan koonfurta Soomaaliya xorriyadda lagu gaarsiinayo muddo 10 sano ah ayadoo uu maamulayo Talyaaniga iyo guddi ka socday qaramada midoobay oo ka koobnaa dalalka Masar, Filibiin iyo Colombia oo ilaalinayay howlaha xorriyad gaarsiinta sida ay u socdaan 18 bishii 10aad 1950 halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud dacwad ka dhan ah maamulkii Afis ayuu u qoray qaramada midoobay asigoo ku eedeynayay inay ka leexdeen waajibaadkii loo xil saaray wuxuuna weydiistay qaramada midoobay in la sameeyo guddi la tashi qaran oo awood leh wuxuu kaloo qaramada midoobay weydiistay in Soomaaliya laga difaaco ajnabiga ku soo qulqulaya gaar ahaan kuwa Talyaaniga ahaa 1954 wuxuu ku guuleystay inuu ka dhaadhiciyo qaramada midoobay in la isgarab dhigo oo meel qura laga wada taago calamada qaramada midoobay Talyaaniga iyo midka Soomaaliya 1956 ilaa 1960 halgamaa Cabdulaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya 1959 wuxuu mar labaad ku guuleystay xilka ra'iisul wasaarenimo 12 bishii afraad 1960
wuxuu abaabulay saxiixayna digreetadii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna darajada generaalka u dalacsiiyay una magacaabay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daawud Cabdulle Xirsi 1960 ilaa 1964 wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda 1964 ilaa 1967 wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka 1973 ilaa 1984 wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Sweden isla markaana wakiilka ahaa dhammaan wadamada la isku yiraahdo Scandinavianka 24 bishii 3 1988 ayuuna ku geeriyooday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga 29 bishii 3 1988 ayaana meedkiisa la keenay dalka waxaa loo aasay si heer qaran ah iyadoo halgamayaashii SYL dhammaantood ay aaskiisa ka soo qayb galeen intii markaa nooleed iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaana muddo 3 maalmood ah hoos loo dhigay calanka Soomaaliya